wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Khadar Xaaji Yuusuf oo ay ku weelinayeen agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhaambiyood laga hirgelin doono duleedka degmada Balli-Gubadle ugu horreyn waxa uga mahad celiyay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka garab iyo gaashaan mawsiina soo dhawow qalbi furan insha Allah mustaqbalka dhaqaaliga iyo dawladda waa markii hore wasiiradii hore wallahi way jireen inta way jireen ma garanaysaa wasiir sidoo dadaalaya maan arag marka wasiirka aad baan ugu mahad celinayaa amrigiisu ha jiro waxaan leeyahay warasaabka gobolka Hawd Ibrahim Ali Xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka ayaa ka warbixiyay ujeedada balliga loogu talagalay دام عادي ما هو دام حبايسن ويا عصري runtii كمباني aqoon u leeyahay dhaamkan uu fulinayo waxa runtii dhaamka fulinayo wasaaradda deegaanka dabada ka riix waxaan aad uga mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka runtii shaqo horena naga qabatay bankan hadday raad moodo inay biyihiina ay keeneen waxa kale oo la shaqeeyay wasaaradda biyaha maanta waxaan u soconaa balligan oo runtii qiimo weyn ugu fadhiya deegaankan ahna meelaha ugu muhiimsan ee Soomaaliland biyaha laanta ku jirto nin badan baanu dabada ka riixaynay ilaa hawlgalkii hore balaanaaynu ka sameynay bankan balliga iyo hawshiisa BMB loo helo deegaankan aad baanu dabada ugu riixaynay wasaaradda gabagabadii waxa soo afmeeray wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Khadar Xaaji Yuusuf waxaanu faahfaahin ka bixiyay dhaambiyoodkan iyo baaxadda uu leeyahay deegaanka oo ugu horeeyo barasaabka gobolka Hawd oo ah barasaab si daacad leh ugu shaqeeya deegaankan oo deegaankuna ay ka warhayaan waxaan kulay aan ka codsan lahaa hay'adda fulinaysa Diamond shirkadda Diamond oo kulay dad aan aad isku naqaana in iyaguna bal quality-googa ay ku soo bandhigi doonaan oo noqon doonto kuwa lagu xusuusto dhaamkan qodistiisa insha Allah ayaan iyagana ka rajayn doonaa haddii Ilaahay ka dhigo ceelkan oo si casri loo dhisayo 200 mitir oo dhinaca iyo 100 mitir iyo 2 mitir iyo badh gudaha ah hoos loo qodayo 350,000 oo mitir kuubig maaha biyo yar maaha waa biyo aad u badan weeyaan in waa biyo waqtiyo adag laga bixi karo weeyaan waxaan dadka deegaanka u soo jeedinayaa in kulay horumarku bilaamay oo deegaanka wuxuu Ilaahay wato weeyaan ma wax walba hadii la sameeyo aan Ilaahay aan wadan ma hirgalo waxa Ilaahay waxa horumarka ugu horeeyana waa wado iyo biyo weeyaan anaguna wixii Ilaahay naga karansiyo waan dabageli doonaa wadada ay biyahana waxaan ku dadaali doonaa wixii anagoo daacad iyo niyad sami ku sugan inaan deegaankan u raadino labada qodob in biyihiina waa ka imka Ilaahay soo furay wadadana Ilaahay baa fududeyn doona insha Allah si ugu dhaqso badan baana loo hawlgeli doonaa dadka deegaanka ayuu baan leeyahay ilaashada waxa Ilaahay siiyay ilaashada oo ku dabaradeega anagana noogu duceeyay Ilaahay hawshaasi aan wadno aan maxay ahayd hawsha aan maxay ahayd deegaanka waxa hawsha aan wadno in Ilaahay noo fududeeyo intaas ku soo gabagabnaa. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.